waxay ugu jeclayd meelay degto iyo meelay ka hadasho iyo meelay qiimayso buuhoodle iyo waxay ugu jeclayd muqdisho ilaahay naxariistii janno saada cali warsamaha ka waraabiyo amiin nimcada iyo naxariista rabbigu korkiina ha ahaato dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee aanu iska maqal aragno bartana YouTube-ka Fikir Samay Studio waa walaalkiin Sahal Ismaan Axmed waa mar kale iyo muuqaal cusub sida alaaba iga barateen halkan waxaynu ka sameynaa wacyigelin murti iyo madadaalo wadaniyad iyo dhiirigelin oo khusaysa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa walaalkeed ka yar Saada Cali Warsame walaalkeed hoos uga yar oo wax badan ka hadlay si gobanimo lehna u hadlay aniga oo maartay maraya barta YouTube-ka ayaan muuqaalkan arkay waxaan jeclaystay in wixii wanaagsan waa la isla wadaagay waa la qaybsadaa waxa wanaagsan laguma bakhayle inaan asxaabteeda qiimaha badan ee Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ee halkan igala socda inaan idin la wadaago bal aynu cabaar ku soconno ha ka soo hadleen oo ha kii basaasay iyo kii xabadda ku dhuftay iyo kii lacagta ku bixiyey iyo kii meesha joogta soo sheegay waa musaamaxayna ilmacali warsame haddaan nahay wallaahi waa saamaxayna hadday soo hadlaan niyahow inkastoo ay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gob iyo nasab tahay haddana ilaahay amarkiisa anigu dadka SSC ama Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan daraawiishta anigu waa u qiray gobanimo wax la yiraahdo waxa ku jira dhiig xalaal ah geesiyaal deeqsinimo xeerbeegti dhaqan iyo dhaqaalaba waa ummad ilaahay maskax iyo nasabiyad kuma naystay way iyo dhiig maartay aan la heli karin oo diamond yab iyo iska cajab ilaahay ha u siyaadiyaan leeyahay idinkuna waad ila qiray doontaan baan u malaynayaa anaga ama lacagta kaga dambeeyay ama dilka kaga dambeeyay ama hadii la ku soo ogol yahay basaasnimada kaga dambeeyay waa musaamaxayna Allah sharaf ilaahay naxariistii janno saada cali warsamaha ka waraabiyo amiin waxaan walaalkeen hoos baan uga yaraa wax yarba ka yaraa sax adigaan wada raaci jiray geelaan wada raaci jiray reerka labada yada haynay sida mujuraan kuray baan ha markaa hoos uga yaraa sidii ay noola joogtay ee anaariga u wada raaci jiray waxay gabadh bulshaawiyada dhalinyarada wiilad iyo gabdhaba iyada u gudbadan jirtay iyada marka aynu ka nimaano maaragtay yaraanteedii anigu dhinaca masraxiyada iyo xilligii fankeeda waxaan ahayd maaragtay fanaaniintii safka hore kaga jiray favorite-kayga ahaa marka aan eegayo dhinaca maaragtay codka markaan arkayo heesaha qiimahooda markaan arkayo jinniyaha iyo masraxiyada iyo dheesha marka aan arkayo quruxda dabiiciga ah ee maaragtay masciideedka ah iyo midabka luulka aan la heli karin oo ilaahay ku manaystay ilaahay Saada Cali Warsame ha u naxariisto iyada ku daba fayli jireen sida u ahayd abaay uu jooga maalintii subaxii dambe maruu naga dhaqaajisay waanu weyni waa la raadiyey waxaanu kaga war helay adigu inay ku biirtay fanka iyo suugaanta gobanimo waxay la tahay qaybihi ay ka soo qaadatay ee wadaninimo kaga soo qaadatay يعني مسؤولين بدل كذا صوت ضغطي ولا ولا فانسين هذه كاسان كنت على يلا كاسان على أنا كاسان على ما أنت أيدي مطي أنت أنا دي مساعد دي أيدي مطي إذا هنا حدث جنا كور أبيه ساعد كور بيوحيلها هذا الشيء كبرت أنا لا يقفت برا وأنا شيء إذا هو يدي وحاس كيديه يينا لنواد حاول بيك لا هذا الشيء شدك تقبلك مريكا بيكتي sida igu maqaala waa looga yeeray Mareykan asxaabteeda sharafta iyo milkaha badan ee igala socota bartana YouTube-ka Fikir Samay Studio waxaan marka hore idinka codsanayaa in aad kanaalka xaqiisa siisaan oo muuqaalka la like gareeyo la share gareeyo kanaalkana qofkii nagu cusub uu nagu dhiirigeliyo subscribe-ta mishin kala looga yeeray markii ay timi markay la soo hadashay ayay waxay tiri bal fiiri ilaahay baan ku dhaarshay
sida waa markaanu qadarino oo aanu tixraacno hadalka ay faamilku ku hadlayaan khaasatan walaalkeed oo Saada Cali Warsameedeedii hoos uga yareeda waxay faamilku aaminsan yihiin shirqool khaas ah oo aan ahayn kii ay argagixisadu ummadda ku leynaysay oo argagixisadu ay ku xalaashatay dhiigga ummadda Soomaaliyeed mid aan ahayn oo special ah in loo diyaariyo Mareykan looga yeerayo ay shabakad iyada u khaas ah ay xirnayd iyo siyaasad iyada in lagu khaarijiyo maaragtay la damacsanaa inay meesha jirtay buu aaminsan yahay أنا إذا لا صهر لي إذا كهتجينا أنا إذا لا صهر لي عاوبيت ساعات بعد جيت أيا واحد تلتي لبدي بكون ما يقال أنا وحالي حكتي وحرم هذا يا سدتني سدت دي بيعي ما كان حمر كجاي ماني حلو ما يسوي ده حسن علي والصبي وحبدي كل على الدجال دي سكري أبهي وتشوقع أيال أفر سد حبيبي سد حمال برضو ما يعد أيالي تقال في سكية هل كان كدعي الفيري إنك يدرس كيف الفيري تقال سكية الفيري وحمد لغته Soomaaliya waa isdhigateen idinka dhibaatiya qax iyo dhaawac isbaday mana aydin kala dheerid oo isla dhalateen dhaqanka sawdkiyo dhulku waa naga dhaxeeyay qabiil baa dhaga idin tiro waa u dhimataan qalbiga idin dhaga xoobay oo waa dhug marateen wax si xaajada dhaliyay waa dhiigu naxyada markaasaa ciidankii ku baxay baa soo helay isagoo nool anigu waan la socdaa waan soo qaadnay aabbahay baan u keenay ha joojin buu yidhi u gudbi xamar saade u geed sidaan u sii waday baa gurigeedii dhiga cisbitaal martiini bay dhigtay xabaddii lowgaa kaga jirtay waxaa ku qalay cismaan tuur nin la yidhaah korneel cismaan tuur cisbitaal martiini haysan jirin walaalkiis kale weeye oo dhaawacmay dagaaladii sukay ku dhaawacmay xabadii buusan ku guulaysan waayay ifisada ahayd ee lowgiisa ku jirtay markii uu ku guulaysan waayay bay waxay u qalqaanisay dibadda nafsa qalfiiri family woman bay ahayd markii dibadda u qalqaanisay geesiyad ah haliyad oo 7 casho uga harsantay falaygii aabbahay markaa uu indhabeela indhuhu ka yimoobay aad uma indhala'ayn saad uu yimi سيدي أبا حسن بالفريقة كوكورانا ده حبدي بعدين كتشبتها حبدنا مركب يكسر على وحي من عدي والعنا يبي بكسر أفكار بس تاكتو والله مكسر قبل ذا ليش هو بكشتي واويل ولا شيء سلجوري لا ترى دور سال وانشو قالوا سيدي أبا دعان ضغط سي أنا عندي اللي جاي حسن والدين هاي أنا جاي قاضي واحد يكتب موسكو ترك روش قبل فيري macnaha arrintaas waa arrin family ah wiilkii dhaawac ahaa oo walaalkeed ahaa way xanaanaynaysa xamar baa lagu geeyay ninkaana u geeyay oo walaalkeed iyadana ka sii yar ah ninkaa xabadii adigu way u hagaagtay oo ay ka soo baxday ma garanaysaa aabaheedna waxay geysay Moscow si indhaha loogu soo fiiqo halkaa waxaad ka garanaysaa siday u ahayd qof waxgal ah oo maaragtay meeshay joogto lagu soo hirto waxay ahayd anigu waxay ii tahay hero baan u aqaanaa waxay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo ilaa 10 ba ay kaga jirtaa kaalinta koowaad haleeyada Soomaaliyeed waxay ahayd halgamaa ku adag mabda'eeduna uu ahaa mid qowmi aan ahayn mid qabiil iyo mid gobol toona waxay ahayd qof dhiiran waxay ahayd geesiyad waxay ahayd qof hal adayg leh waxay ahayd qof aan la gaban fikirkeeda iyo waxay aaminsan tahay waxayna ahayd wadaniyad jecel qofka Soomaaliga meel kasta uu ka soo jeedo waxayna ummadda ku dhiirigelin jirtay oo waxa loo dilay bade oo loo aamusiyayna waxay ahayd wanaaga ay ummadda maskax furka ay ku wado iyo dhiirigelinta iyo abaabulka midnimo iyo isku duubni jacaylka ummadda Soomaaliyeed aniga maxaa aaminsan tahay dhaha iyagu waxay aaminsan yihiin shirqool gaar in loo dhigay waana dhici kartaa wax kasta dhici karaan waxba ma ogi ilaahay baa wax og laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed iyada la isu adeegsaday laakiin mindida aanu anagu isku qalayno daabka uu cadow shisheehayo oo ay arrintu gacmo shisheeye ka marnayn daabka waxa haya ummado raba inaynu ismarino oo geeska barwaaqada ah uu cidla noqdo hadhowna daleel laga qaato khayraadkeena iyo maartay dhulkeena hodanka ah oo inagu aynu si qiimo leh oo maartay sinaan leh oo taxadar leh oo wadaniyad leh oo garasho iyo aqoon leh uga faa'iideysan weynay waxa la rabaa inaynu inagu ismarino kala cararno inagu isnacno
kooxba meel lagu oodo magacyaha laynoo kala sameeyey iyo maryaha beenta ah qolaba gaarkeeda looga adeegto maalin Kismaayo laga adeegto maalin Hargeysa laga adeegto maalin Garowe laga adeegto maalin Xamar laga adeegto maalin Baydhabo laga adeegto meelaha kale oo dhan sidaas oo kale si lamid ah looga adeegto arrintaasina waa arrin casaan ah oo in alarm laga muujiyo oo mudaharaad laga muujiyo oo laga digtoonaado oo laga hortago oo la daba qabto waxa la yiraahdaa haruub daati caanaha dabada la qaban jiray وين استقال وين كلا تجني ويس لاينا ويس آمين من النتي حل معه إلهي أمض وين كده دول يدقم بينا كده حياة وين نكوه شينا واحد كستوي دعان ومضاها يطلالك عالمك كوا عن الصولين حرب أهلي ويس عمرين كوا ويس الناس يسكو حبالي ترين وحي دونان بيسكو سمايان نف يمال بويس مرين ترين حتى أنا حل بآخر كجارين أنا وحرها إن لا سوق عبيو وقت كان أفرتمية سنة كوسي سقيا أو لقى لا هو wixii hore maartay xalay galay laga noqdo oo la heshiiyo oo dagaaladaas oo kale leeyahay hebel baa lowga kaga dhaawacmay hebel baa xagga la isku haysto waxaan oo dhan laga waantoobo aad iyo aad ninkaasi sharaf loo hadlay wuxuu yiri waan cafiyeynaa haday qirtaan cidii ka dambeysay haday tiraahdo annaga waxaas lugta ku lahayn waan cafiyeynaa balan buna qaadida waa balan rageed waa balan darwiish ama darwiish xaqooda laga maro waa ka dambeeya bal aan cabaar si dhageysano madaxda ruushka dhigta ماريات بدن بقى بحضر. أودايا. إنديه لهاي كم بقولينه هي اللي يروك على كومي. أيه وحوي إنديه حوي شدي دب بختيه. ترى ضلادي نختار كواحد كي. ما كان لسه صوب بانتو. إيش كي صوب بانتو ودن كيني. دي بنقطة. ما كان له صوب نقطة. ضلادي حوار بعد على المكان. وحيوجد على المال يدكتو. iyo meel ka hadasho iyo meel ay qiimayso buu hoodlay waxay ugu jeclaan Muqdisho buu hoodlana waa meeshii hooyadeed iyo aabaheed iyo deegaankeedu ahaayo ay ka soo jeeday waxaraha ku raacisay Muqdishona waa xuduntii ummadda Soomaaliyeed oo ku suntanayd magaca Soomaaliyeed ku suntanayd oo caasimadda u ahayd dunida u aqoonsanayd marka qofka wadaniga ah sida lagu yaqaan aniguba deegaankii aan ku garaadsaday wax ku soo bartay ku dhashay ka imi waan jeclahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed iyo calankaasna iyo magaca ummadda Soomaaliyeed iyo sumadaheena iyo aasaarteena dhinacayga waa lama taabtaan bay ka yihiin absolutely waxaana adduunka ugu qiimo badan ninka aan tuugga ahayna laba boglaha ahayna waxa uu aaminsan yahay horay la soo fariista sida Saada Cali Warsame ilaahay maartay ha u naxariisto dambigeeda ha dhaafaan leeyahay walaalayaal bal wax yar baan dhageysanayna mar rabo inaan idinku dheereeyo muuqaalka maartay laakiin si sharaf leh muhiimadda muuqaalku wuxuu ahaa waanu cafinaynaa haday maartay qofka qiimahaas lahaa dadka dilay intay hore yimaadaan ay qirtaan waanu cafinaynaa aniga iyo walaalahayba waan cafinaynaa saas u taagan markii horena fanaanadaas ay ahayd qiimaha weyn ku leh wadanka markii dambana xildhibaan bay noqotay xildhibaan waxay noqotay xildhibaan Soomaaliyeed ama ummadeed bay noqotay sida daraaddeed gacan ka xamdaran baa dishay ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo amiin